madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa lama filaan kaga dhigay taageerayaashiisa aadka u jecel inuu kala qayb galo xaflad aroos markii madaxweynaha isha laga qaaday ayay isqabsatay weedha ah Mareykanku ha noolaado sida ay sheegtay shabakadda Sky. Madaxweynaha ayaa waxa uu waqti ku qaadanayay garoon gaar ah oo ku ciyaaro ciyaarta golfka oo ku yaala New Jersey. Markaa wuxuu go'aan ku gaaray inuu booqdo xafladda lamaanaha arooska si xafladooda uu uga dhigo mid gaar ah oo ka duwan xafladaha kale. Trump wuxuu hor istaagay martidii xafladda oo fadhiga uga kacay halka dadku ay bilaabeen inay ku qayliyaan weedha ah Mareykanku ha noolaado, Mareykanku ha noolaado. Kadib madaxweynuhu waxa uu salaamay oo laabta uu geliyay arooska iyo aroosadiisa. lamaanahan waxa ay ka mid yihiin dadka sida aadka u taageera madaxweyne Donald Trump, halka qaybta soo dhaweynta ee xafladda arooska ay ku xardheen calamo lagu qurxiyay oo ka turjumaya ololaha doorashooyinka madaxweynaha Donald Trump ee 2020 uu galayo. Mongeli iyo aroosadiisu waxay hore u sheegeen inay infiito u direen madaxweynaha, laakiin aanay garanaynin inuu xafladda arooska ka soo qayb galayo iyo in kale. Sida uu sheegay janalka CNN, tani ma ahan markii ugu horeysay ee Trump lagu arko xaflad aroos. waxa uu horay sidaan oo kale si lama filaan ah oo kaga qayb galay xaflad aroos oo ay dhiganayeen lamaanaha Christian Biakuwiski iyo Tucker Carlton oo xafladooda aroosku ay ka dhacday Mar-a-Lago.